saalixiinta kamida inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu kadhi labana weligaa ha xasuusan lacallahu luqmaan alxakiim inuu ahaa sagaal iyo toban meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo keliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah caza wajalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa lagaa dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata markaa inaad adeecdaa kuu dhib yaraan marka bani aadankan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid a inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu kadhi labana weligaa ha xasuusan lacallahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikaiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'ale ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allah aad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi ithnaani laa tansaahumaa wa ithnaani laa tadkurhumaa buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba ixsaanaka ila annaas wa isaa'atuhum ilayka wanaagga dadka aad u samaynaysid weligaa ha xasuusan haddaad ummadda aad wanaag u samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad cilmi baraysid ilaahay dartii u bar haddaad u ixsaan samaynaysid ilaahay dartii ugu samee haddaad u shafeecad qaadaysid ilaahay dartii ugu shafeecad qaad haddaad wax dayminaysid ilaahay dartii u daymi waxaad dadka u qabanaysay wanaaga marka u horraysa waa inaad u qabataa alla dartii dhibaatada dadku ay kugu sameeyaanna weligaa xasuusan buu ka yidhi iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ixsaankaad u samaynaysid haddaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan gallad sheegta inaad noqotaad halis u tahay gallad sheegte gallad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كلول أضرنا وإليهين صدح جرب نبي إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيا يدي خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوغين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك برقابو نبي قول المنان وكذلك قلت شيكته برسولك يدي قلت شيكته qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay fabisada kula ya dadka la mid buu kula ana qof ka dhigay kan ma adarkay buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore madameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سمية أنا وحكاد جي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أوه رئيس سبع هذا مدة وحقوق بنا سلاح درت وحقوق أبو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاص هو عجيب الله ينسي إخلاص من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا دونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا انيغا عيد كلا يقول لنا با الهي اي شريك يلي عمل كيسا iyo shirkigiisa qiyaamaha waan uga tagaaba ilaahay yiri lillahi wa inuu hada qofka muslimku
waxaad dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa camalkaaga aakhiro camalkaaga adduunyada ha ku doonin fanuxsin dadka haddaan wax u qabanayno haddaan wax u sheegayno haddaan wax barayno haddaan ixsaan u samayno haddaan infaaqinayno waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxaa kaluu ku yidhi ninkaasi inankiisa markuu la dardaarmaayey dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaanna ha xasuusan buu ka yidhi waxaad noqotaa qof saliimu sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaadaa nadiif saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abibakr sidiiq radia allaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed soon iyo salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi labadaa weligaa wuxuu ku yidhi ha xasuusan labana ha iloobin ilaahay ha iloobin daarta aakhirana ha iloobin buu ka yidhi allah wadaar alaakhira allah waa kii ku abuuray ku jirsiiyey daarta aakhirana waa daartaan kulligan u wada noqon doona xaggeeda weeyaan allah waa kii ku abuuray muxuu kuu abuuray macrifadiisu ilaahay kuu abuurtay cibaadadiisa ilaahay kuu abuurtay aakhiraduna waa daartee waa daarta addoommaha ilaahay uu ku sugayo ee addoommaha lagu xisaabi doono weeyaan inna yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfaqu fi الsuuri fata'tuuna afwaaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا ما لنت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان وما لنت ويوم الفصل وما لنت لك لصاري دونو ويان كيف عنائي كيف حمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار كان لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصير يوم القيامة لبدا ولقا هاي اللوبين بوكوري لبدا ولقا هاي اللوبين الله يكو أبوري هاي اللوبين مر والبحصوص نو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوص نو هداد أقل جوكت إلهي حصوص نو هداد مسكيت جوكت إلهي حصوص نو هداد عرك جوكت إلهي حصوص نو هداد دلك جوكت إلهي حصوص نو ولقا إلهي هاي اللوبين